warbixin dheer oo ka soo baxday hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Kenya gaar ahaan kuwa militariga ay xadgudubyo xad dhaaf u geystaan dadka Soomaaliyeed ee degan magaalooyinka ku yaala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. warbixintan oo aad u dheer lagu qoray wargeyska The Washington Post ayaa lagu sheegay inay xad dhaaftay dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ay geystaan ciidamada Kenya una geystaan dadka Soomaaliyeed marka Al-Shabaab ay weerar u geysato. Hay'adda Human Rights Watch waxa ay warbixintan ku sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 88 kiis oo ciidamada Kenya ay geysteen laga soo bilaabo sanadkii 2011. meesha ay warbixintan sida gaarka u dul istaagtay waa tuulo la yiraahdo Kutulo oo ka tirsan ismaamulka Mandera. tuulada dadka ku nool waxay joogto u yihiin cabsi ay ka qabaan ciidamada militariga Kenya KDF loo yaqaan kuwaasoo dila xira jirdilna u geysta dadka magaalada marka la weeraro iyagoo jidka maraya. magaaladan ceelasha biyaha ee ku yaala waa laga xabaalay waxaana ay u doontaan biyaha meelo fogfog waxaana dhibaatadaas u geystay ciidamada Kenya. markastoo ay maqlaan ciidamada Kenya gaadiidkooda ay ku soo dhow yihiin waa laga baxaa magaalada habeenkiina si dareen leh ayaa lagu joogaa sida ay sheegeen. in ka badan inta ay ka baqaan Al-Shabaab ay naftooda kala baqaan ciidamada Kenya. dadka Soomaaliyeed ee xuduudda degan ayaa lagu yiri warbixintan lagu daabacay wargeyska The Washington Post. warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in 8 sano ee ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya inay aad u bartilmaameysteen dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan marka ciidamadu ay la kulmaan weerar kaga yimaada Al-Shabaab. Ciise Axmed wuxuu ka mid yahay dadka degan tuulada ceelka tuulo la yiraahdo waxaana uu sheegay guddiga warbixintan diyaariyay in cabsi darteed ay u qoteen godad ay ciidamada uga dhuntaan. waan cararnaa oo dhuumanaa markasta oo aan maqalno ama aanu helno war sheegaya in ciidamada Kenya ay soo socdaan ayuu yiri Ciise. dadka halkan degan waa muwaadiniin Kenyan ah haddana cabsi ka badan tan aan ka qabno Al-Shabaab ayaa ciidamada militariga ka qabna ayuu sidoo kale yiri. guddiga ka socday hay'adda Human Rights Watch ee warbixintan diyaariyay waxa ay sheegeen inay la kulmeen shakhsiyaad inta ciidamada Kenya xireen la sii daayay hase haatee cabsi darteed u diiday inay la hadlaan ama ay ka hadlaan wixii ay la kulmeen. ciidamada Kenya wixii ay doonaan ay halkan ka sameeyaan mana jirta cid la hadasha ama naga celisa waxaa sidaa yiri nin kale oo dadka deegaanka ah lana yiraahdo Maxamed Cilmi. maxamed waxa uu adeer u yahay Cabdiqaadir Cilmi oo 34 sano jir ahaa ciidamada Kenya ay dileen markii miino loo dhigay kolonyo gaadiidkooda kamid ah oo marayay meel tuuladooda u dhow. ninkan waxa uu sheegay in habeenkii iyagoo dareen qaba ay seexdaan. cadaadiska ciidamada Kenya ku hayaan dadka Soomaaliyeed ee dhulkooda ay Kenya maamusho waxa ay keentay in dhalinyaro badan ay hubka qaataan ama ay ku biiraan Al-Shabaab. xogo wargeyskan xiganayna ee Washington Post uu helay waxay muujinaysaa in boqolaal dhalinyaro ah oo deganaa Kutulo ay carad darteed Al-Shabaab ugu biireen. sababta wargeysku waxa uu ku sheegay inay tahay kadib markii ciidamada Kenya ay deegaankaasi ka xireen macallin dugsi Quraan maalmo kadibna meydkiisa la soo dhigay deegaan kale oo la yiraahdo Caws Mudul. meydka macallinkaas waxaa la dhigay meel wada dhinaceeda ah. Human Rights Watch waxay warbixintan ay diyaarisay ku magacowday xadgudubyada bustaha ka hoos jira. waxay sidoo kale ku sheegtay in ciidamada Kenya gacantooda lagu tuumayo 10 ruux oo aan weli raqdooda iyo ruuxdooda midna la helin. dowladda Kenya way dafirtay eedda loo jeediyay sida ay shaaciyeen guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya. haweeneyda guddigan madaxda u ah oo magaceeda la yiraahdo Jadiid Daawarihu waxa ay sheegtay inay jirin eedda ciidamada Kenya loo jeediyay waxaana inta ay ku dartay inuusan sidoo kale jirin wax xoga oo xafiiskooda soo gaaray. Jadiid Daawarihu waxay ku eedeysay dadka degan tuuladan ay warbixintu xustay inay diideen in la shaqeeyaan guddi baarakiiskooda oo loo diray sidoo kalena ay ka jawaab waayeen su'aalo arrintan la xiriira oo la weydiiyay. wargeyska Washington Post waxa uu sidoo kale sheegay inuu ogaaday in dowladda Kenya xataa ay diiday inay la shaqeyso guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ka socday. dowladda Mareykanka oo ciidamada Kenya ka caawiya dagaalka Al-Shabaab ay kula jirto ayaa iyana sheegtay inay ka naxeen warbixintan markay ay maqleen waxaana sheegeen inay baarayaan. afayeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom Desire Vreme ayaa sheegtay in ciidamada Kenya ay baraan ilaalinta xuquuqda aadanaha. dadka falanqeeya arrimaha ammaanka waxay aaminsan yihiin in haddii ciidamada Kenya ay sii wadaan dhibaatada ay u geysanayaan shacabka Soomaalida ah in cadowgooda ay badsanayaan waxaana ay keenaysaa in Al-Shabaab ka faa'iideysto oo dhalinyaro badan qortaan. dhowr mar ayay soo baxday eedda ah in ciidamada Kenya ay ku xadgudbaan dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka ku yaala xuduudda iyo xataa gudaha Soomaaliya.